Asalaamu calaykum. Kusoo dhawo Quraactech. Maanta waxaan fiirin doonaa qaybtii labaad oo Smart Nalka oo ku saabsanayd sida PCB-ga aan u designin doono. Marka waxyaalahan maanta fiirin doono waxa waaye horta waxaan ka jawaabi doonaa laba su'aalood. Midda koowaad oo ku saabsan maxaa waaye PCB-gu sidiisaba. Tan labaad waa maxay sababta loogu baahan yahay PCB in la sameeyo. Ugu dambaysna waxaan bilaabi doonaa PCB-ga sida loo samayn lahaa. Okay, horta tan koowaad PCB maxaa waaye? PCB-gu waxa waaye bahashan cagaarka ah oo aad u jeedin oo lagu dul dhejinayo qalabyada electroniga component yaashiisa ah. Waxa la sameynaa waxa waaye kan ayaa lasoo sameynayaa. Marka filooyinkii dhaadheeraa ayaa waxa lagu bedelayaa kuwan dhalaa u jeedin. Kana u jeedinna waxa waaye PCB oo anigu aan sameeyey oo aan weli aanan dhammaystirin laakiin dhammaystirkiisa ku tala jiro. Okay, kan aad u jeedin haddaan horta dhinaca u dhigno oo aan kasoo fiirino geeska PCB-gu wuxuu u taagan yahay waxa waaye printed circuit board oo loo soo gaabiyey PCB. Horta kan aan ka hadlaynaa PCB-gan ka hadlaynaa waxa waaye kuwa standardka oo caadiga ah oo aan ahayn kuwa u baahan special process. Macnaheedu waxa waaye kan midka waxa waaye qof walba uu samaysan karo oo badanaa suuqa laga helo. Ma ahan kuwa specialka oo loogu talagalay high frequency iyo waxaas. Marka asaga wuxuu ka kooban yahay marka glass fiber iyo birta maarta oo korka ka saaran. Marka haddii la dhaho two layer PCB macnaheedu waxa waaye glass fiberka ee gudaha ku jira laba bir ayaa kor ka saaran. Laakiin kan hadda aad kor u jeedin wuxuu ka kooban yahay afar isdulsaar mase afar layer. Marka layerka koowaad waxa waaye bira kor ugu koreysa oo kan yarka jaran ah inta ka arkaysin. Waxaa kaloo gudaha ku xabaalan bir kale ayadana. Haddana waxaa la sameynayaa glass fiberka dusha laga saaraya. Haddana bir kale lagu koolaynaya. Hoos meesha ugu hooseysana sidoo kale bir kale la dhigaya. Marka PCB-gu waa kaasa wuxuu ka kooban yahay. Haddaan sii socono waa maxay sababta loogu baahan yahay PCB-ga? Sababta loogu baahan yahay PCB-gu waxa waaye sida caadiga haddii aad rabtid inaad waxyaalaha oo electronic isku dhedhejisid waxaad u baahan tahay filooyin kaba soo qaad kan ayaad isticmaashay oo la dhahayo breadboard. Dowladaas filooyinka gashanaysa marka fiilada halkan geynay mid kale inta kasoo waday saas isugu xiraysa wax dhan. Dhibka jira waxa waaye kan marka haddii aad damacdid inaad meel ka qaadid oo meel kale geysid waxaa laga yaabaa filooyinka kaa fuqaan. Midda kale tan waxaa laga yaabaa filooyinka dheerdhererkooda inay keento in wixii si fiican u shaqayn waayaan. Midda kaleeto jirtana waxa waaye kan halkan xaba samayskiisa waxaa laga yaabaa waqti badan uu kugu qaato. Haddana qof kaleeto hadduu rabo inuu sameeyo wixii mase qof kale siisid ama u sii dhiibtid inay waqti u baahan tahay qofka la isticmaashid. Marka tan waa laga gudbi karaa oo waxaa la tegi karaa mid kaleeto sana glass fiberka camal waaye mase waxa uu noqon karaa wax kasta adi gudahaasa la duleelinayaa componentasha la gudaha la gelinayaa marka filooyin yariisa la iskula xiraya. Kan dhibkiisu waxa waaye waqti aad iyo aad u badan u baahan tahay laakiinse kan wuu ka roon yahay maadaama wuxuu kaa kala daadanaynin. Tan kaloo jirtana waxa waaye maadaama waqti badan lagu isticmaalayo dhib ayaa tahay in kuwa badan la sameeyo. Haddii la rabo product laga sameeyo aad iyo aad waqti badan ugu baahan tahay. Sidaas darteed productiga aad rabtid inaad samaysid way qaaliyoobaysaa. Marka haddaan soo koobno faa'iidooyinka PCB-ga uu leeyahay waxa waaye runtii way fududahay in qalad raad la sameeyo. Midda kaleeto uu ku fiican yahay PCB-guna waxa waaye waa la yareyn karaa PCB-gaaga mase electronic-gaaga aad iyo aad u yareyn kartaa. Tan kaleetana waxa waaye waa la isku hadlayn karaa. Isku hadlayntu macnaheedu maxaa waaye marka mid samaysid oo aad hubsatid inuu shaqeeyo kaasi uu si fiican u shaqeynayo boqolaal xaba haddaad samaysid mase kumanaan xaba haddaad samaysid waxa aad ka filaysay inuu sameeyo. Tan kaleeta ahna maadaama kan samaynayso shirkadi soo samaynayaan mase warshad lagu samaynayo oo mashiino samaynayaan aad iyo aad uga raqiisnaanaya. Soo saaritaankiisuna wuu dhaqso badan yahay maadaama oo aan la samaynayn hal xaba laakiin boqolaal xaba hal mar la isu gees samayn karo iyo waxyaalo kale badan faa'iidooyin ku leeyahay laakiin inta ka taabta intaan waayani. Marka hadda aan u gudubno software-ka KiCad-ka sidaan ugu samayn lahayn. Okay, maalintii ugu dambeysay markii oo aan joojinay kan waxaasana noogu dambeysay. Marka waxaan u baahannahay laba wax inaan samayno.
si aan PCB ugu gudubno. Tan koowaad oo ah horta haddii aan meeshan fiirino waxaa ujeedin lugooyin badan oo firaaq ah. Lugooyinkaas marka horta waa in la dhahaa ma isticmaalayo. Sida loo dhaho ma isticmaalayana waxa waaye kan ayaa la taabsanayaa, marka kana la tagayaa, marka mid kastaas loogu jiraa. Macnaheedu waxa waaye crossta meesha saaran tahay, macnaheedu waxa waaye lugtan ma isticmaali doono. Marka waa saasaan ku dhamaynay. Marka waxaan u baahanaa waxa waaye horta kow waxaan dhahaynaa save. Marka ugu dambaysa waxaan samaynaa, haddaad fiirisiin waxaa ku qoran ja iyo calaamad su'aal. Macnaheedu waxa weli nambara muusan siinin. Kanna sidoo kale ja calaamad su'aal, ja calaamad su'aal. Marka waxaan u baahannahay inaan siino reference designator. Macnaheedu waxa waaye nambaraa la siinayaa. Markanaan taabanayna waxaan dhahaynaa annotate. Kadib wuu dhameeyey hadda ku qoran annotation complete. Marka hadda waa kana ja kow ku qoran kan ja kow si loo kala garto. Midda kaleeto aan u baahannahay inaan sameyno waxa waaye inaan tagno midda kale aan u baahannahay inaan sameyno waxa waaye inaan dhahno waxaa fiirisaa electrical rule checker. Macnaheedu waxa waaye haddii si qalad wax laisugu dhajiyey, laba meel oo laisugu talagelin laisku dhajiyey, waxbuu ka sheeganayaa. Marka waxaan dhahaynaa bal fiiri qalad inaan sameynay. Okay, sidaan ujeedin meeshan waxaa ku qoran 5 qalad ayaad samaysuu leeyahay. Tan koowaad oo ah haddaan inta fiirino input power pin not driven by any output pins. Okay, haddaan kan taabano marka wuxuu ku tusinaa kan uu ka hadlayo kuwan waay. Okay, kan wuxuu leeyahay kuwani not driven. Runtii waxaan wax weyn ma ahan hadda qaladkan uu sheegayo, laakiinse si qaladkan oo aan loo soo saarinin waxaan u baahnaa waxa waaye inaan isticmaalo waxa la dhahayo power flag. Marka power flag inta ka raadinaynaa power underscore flag sayna ayadaan marinaa mise flag baan dhahaynaa. Waa kana power flag kan ayaa u baahannahay. Marka hal xaba inta isaga dhajinaynaa mid kalena waa soo qaadayna. Okay, so hadda labadii xabo ka sheeganaya kuwaanay ahaayeen. Macnaheedu waxa waaye waxaan dhahaynaa kan ayaa wuxuu yahay kan powerku ka imaanayo. Dimule kan waxaan u baahnaa power inuu soo galo. Yes, mar kale aan fiirinaynaa. Okay, qaladkii ma saxnay. Waxaa ku qoran okay dhib ma leh. Mar kale aan wadaynaa wuxuu leeyahay 3. Macnaheedu waxa labada xabo qaladkoodii waa dhammaaday. Kuwaana sidoo kale aan ku dhajinaynaa. Wax qiimaha runtii ma lahan aan hor u sheegay. Laakiin kuwaana isticmaalaynaa. hal xabaa jira kan ugu dambeeya waaye. Ana sidoo kale waxaan ku dhajinaynaa power flag waxaan dhahayay. Waxaan rabaa inaan dhaho ma ahan qalad kani, laakiin maadaama softwarekan lagu rabo in la hubsado meesha power ka soo galayo iyo meesha power ka baxayo mar walba inay isdaba joogaan, wuxuu hubsanaa waxa waaye laba shay haddaad isku dhajinaysid, midna waa midka powerka dhiibahaya, midna waa midka powerka qaadanaya. Marka haddii labada meelba ay noqonayaan laba power u baahan laakiin weligood soo gelin power wuu kuu sheegayaa. Marka hadda saa ujeedina hal qaladna ma jiro, hal digniinna ma jirto. Waxaan ogsoonahay kan sida uu u egyahay sawirkiisa, laakiinse markii dusha looga dhajinayo sidii aan ka aragnay meeshan camal meelaha computer ku fariisanayaan annagu waa inaan sheegnaa sida u ekaan doonaan. Marka hadda waxaan samaynaa la kaliya waxa waaye saan bay isugu dhagayaan basaan niri, laakiinse runtii ma ogsoona 3 lug muu leeyahay, 2 lug muu leeyahay. Component kasta footprintkooda ugu sheegno intaan tagayna
marka inta waxdaad fiirisin column-kan footprint ku qoran yahay waxaa ujeedin kan hadda DC inka la dhahayo inuusan haysan footprint, kan AC inka, kan sidoo kale kulli waxaan dhanba inaan meesha yaaliin mase noocuu yahay u sheegno waaye. marka waxaan taabanaynaa meeshan buugaagta ku sawiran yihiin library-ga ah. marka halkaas taabano kadib kana noo soo baxaya. waxaan tegaynaa marka kii koobaadaan doorsanay wuxuu ahaa DC in, marka kaasi wuxuu ahaa saan hore u dhahnay terminal block markaan nimaano mid waxa waaye laba lug leh, tan kaleetana waxa waaye labada lugood waxay isku jiraan 5 millimeter. marka kanaan doorsanaynaa, kaas waa doorsanay. marka maadaama labadan isku mid yihiin kan ayaan copy ku sameynaynaa inta la dhiganaynaa, macnaheedu waxa waaye labadooda isku footprint waaye. kii kaleetana waxa waaye kan midkan kanna wuxuu ahaa hairpin, marka asagana saan ku doorsanayna waxa waaye intaa tegaynaa kadib waxaan tegaynaa meeshaan la dhahayo connector aan tegaynaa kadibna pin header. marka meeshaana waxa waaye 2.5 kana wuxuu u yaalaa waxa waaye labada lugood inta isku jiraan. marka midkan aan haysanana waxa mid 4 lugood la waaye sida inta ka arkaysiin, hadda ma arki karno laakiin 4 lugood uu leeyahay. marka noocyo kala gedisanaa jira, midna waxa waaye horizontal waaye, midna vertical waaye, midna waxa ku qoran SMD. okay, midka vertical haddaan ka bilowno suu egyahay isaga 3D markaan dharna tusiyo saan u egyahay, mid qalooc yaalla waaye. kaas ma aan kaan rabno, anaga waxaan rabnaa keen inuu istaagsanaado. marka kan verticalkaan fiirinaynaa waa kana saan u egyahay. midkii saddexaad oo ugu dambeeyey oo ku qoran tahay SMD, vertical SMD, asagana waa fiirinaynaa. okay, saan u egyahay. kan macnaheedu waxaa korka lagu dejinayaa kama dhex baxaya boardka. marka kanna maan u baahannahay, saan hore u sheegnay kana u baahannahay. ka waa doorsanay, kana soo haray. kanina wuxuu ahaa midka asaguna labo row iyo labo column, asagana sidoo kale inta ka doorsanayna. marka waxa waaye kan haddaad fiirsid kulli waxaa ku qoran hal, macnaheedu waxa waaye hal line waaye, mid laba line aan u baahannahay. hoosaan soconaynaa, laba line waa kana ka bilaabanaya. marka waxa waaye laba lagu dhifta labo, kan ayaan doorsanaynaa. suu egyahan haddaan rabno in aragno saan waaye. marka macnaheedu waxa waaye jumper, marka jumper ku dhejin karnaa labada darna isku dhejino, jumper ku dhejinayna saan hore u dhahay. marka kan soo haray waxa waaye kan dhahayo K1-ka, kaasoo ah midka oo solid state relay-ga kan waaye. kanna hadda ka hore usoo qaadanay, marka meesha library-giisu yaallo waa inaan soo gelino. sidaan usoo gelinayn library-yaashii waxaasna mar kale ayaa idin tusinayaa, laakiinse hadda horaan usoo geliyey. marka inta ayuu hoos yaallaa waa kana isagana. kan kale noo haray waxa waaye resistance yeeshan waaye. resistance-ka laba nooc uu kala yahay, midi waa mid sida connector-yaashaan aragnay board ka dhex baxaya, midna waa mid dusha looga alxamayo. marka anaga waxaan u baahanaa waxa waaye kuwa dusha looga alxamayo, kuwaasoo la dhahayo SMD mase surface mount device. kuwaas u baahanaa. resistance waxay kala leeyihiin inkastoo SMD yihiin nambaro ay kala leeyihiin, sida u kala weyn yihiin kala gedisan. marka kii anagu aan rabno waxa waaye resistor SMD. marka inta waxaa ku qoran O201, O4, O2. marka waxa waaye inta nambarka hore wuxuu sheegaa dhererkiisa intuu leeyahay, kan kalena wuxuu sheegayaa inta ballaciisu yahay. kan u baahanaa waxaa kan anaga waxa waaye O6, O3, eber 6, eber 3. nambarkan waxa waaye imperial, kanna waxa waaye kan oo maxaan lahaa metric caadiga aan naqaano oo u dhigmaa. marka dhererkiisu waxa waaye 16 millimeter, ballaciisuna waxa waaye 8 millimeter. marka wakaasa igana raali noqdo, waxaan hilmaamay cursor highlight-kii inaan sameeyo, haddaan sameynaya. marka waa kana saas u dhigma, kadib kanaan doorsanaynaa. siduu u egyahay haddaan rabno inaan aragno saan waaye. dusha ayaa laga saaraya, marka dusha looga alxamaya boodka, kama dhex baxayo. wakaasa laba jeer aan ku dhufanaynaa, waa doorsanay.
marka maadaama kulli ay isku mid yihiin footprintgan doorsanay koobaad ayaan kulli copy paste ku samaynaynaa. hadda saan u jeedno marka kulli dhanba raadkooda waa u sheegnay mid kasta raadkiisu nuucu yahay. marka kan saanaan ku xiraynaa schematicgii waxaan u baahannahay in u gudubno PCB-gii. okay, PCB-gii markaan furno kan waxaa la dhahaa horta PCB editor, kan kale hore usoo arkaynin wuxuu ahaa schematic editor. PCB editorka midka aan ku nashqadaynayno PCB-gu suu ekaan doono, boardku intuu weynin la ekaan karo iyo sida boardku u ekaan doono. waxyaala muhiimka waxa waa inaan fahanno waxaa ka mid ah waxaan dhahayo grid size. marka gridkan hadda waxaa ku qorada inta zoom ku samayno labadan dhibcood inta isku jiraan mase markii oo kaba soo qaad aan rabno inaan sikano numberka aan sikanayno ayaa waxay tahay 0.2 millimeter. marka kaba soo qaadaan ka bilowno 1 millimeter ka bilowno macnaheedu waxa labada dhibcood inta isku jiraan waxa waaye 1 millimeter. marka dhibic kasta dhibicda kale ku xigta waxay ku jirtaa 1 millimeter. taas waa mid. tan kaleetana waxa waaye halkaan inaan tagno aan dhahno board setup aan fiirino. marka board setupkan waxaa ka doorsan kartaa amase waxaad ka samayn kartaa boardkaaga waxa ku saabsan fabrication boardkaaga lagugu samaynayo. shirkadda ku samaynaysaa makiinadaha ay isticmaalayso waxaa jirta waxyaalaha xad bay leeyihiin, wax kasta ma iska samayn karaan. design rule ay sameeyeen waxay ku leeyihiin si anagu kuugu samayno waxaad u baahan tahay kaba soo qaad laba filo isgees maraya inay isku jiraan kaba soo qaad number. hadda kan waa mid aan isaga qoray laakiin sida caadiga in la taga waaye fab houseka mase PCB manufactureka inaad tagtid homepage-kooda kadibna capabilities taabatid markaasa waxaad arkaysaa nambaradan waxyaalaha ay u taagan yihiin mid kasta wuxuu yahay. marka inta hadda camal waxaan ku qoranay 0.2 hadhowti markii oo softwarekan waxaan ku sawirayno oo ku samaynayno ku nashqadaynayno asaga ilaalinaya sharciyadan. marka annaga waxa waa inaan ku qasabna maahan kuma xadgudbiga asaga. marka kulligood waa kuwana hadda kan camal waxa waaye laba fiilo inta isku jiraan. kan waxa waaye fiiladu ballaarkeedu inta la ekaan karto. kan waxa waaye kaba soo qaata haddii oo aan biyo samayno laba isku dhijino korka iyo hoosta boardka laba fiilo inaan isku dhijino rabno bahalka la duleelinayo kan korka laga sii saarayo oo cadaanka soo muuqan kara qul ekaan kara buurnaantiisu intee waaye. kanna waxa waaye vierka kan ugu yari meequu noqon kara. wax kasta dhan waa kuwaasa. kana waxa ku qoran tahay fiilada iyo qarka PCB-ga mase boardka meeqa isku jirayaan ugu yaraan. marka kulli halkaas ku qoran. marka halka mid oo aan rabo inaan ka dhawaajiyo waxa waaye haddii kaba soo qaad shirkadda ku qortay xadkeenu waxa ugu yar waxa waaye xadka ugu yar oo aan track ku samayn karna waxa waaye 0.2 millimeter kaba soo qaad. annagu ma ahan 0.2 inaan halkaas ku qorno. 0.2 waxa waaye xadkooda waaye. ma u baahnid xadka adi mar walba inaad ku socoto wax yar ayaa boos la siiyaa. haddii 0.2 ay ayagu leeyihiin waxaa laga yaabaa inaan dhahno annaka 0.22 0.12 marka wax yariisa adiguna boos baa isa siis. haddii wax yar qaldamaan waxooda qalad weyn ma kaa dhacayo oo wax ma kaa halaabayaan markaas. okay, hadda waxyaalahan waa aragnay sida caadiga markaas in laga bilaabo waayo laakiin annagu maadaama aanan samaynayn wax oo fabrication ku samaynayn ma u baahnin asna kuwan. markana dib u fiirin doonaa sida loo sameeyo kaas oo intii la galo PCB fab house homepage-kooda la galo sida loo buuxinayo waxaas markana video ka samayn karaa haddii la rabo. laakiin anaga maanta PCB-ga bas baan samaynaynaa. hadda wuxuu saan bay weegyihiin 1 millimeter aan doorsanay. meeshan waxaad ka arkaysaa waxa waaye layeryaasha kala gedisan. kan koobaad waxaa ku qoran CU macnaheedu waxa waaye copper waaye. kana sidoo kaleeto kan waxa waaye kan kore ama wuxuu taagan tahay front copper. kana wuxuu taagan yahay back copper macnaheedu waxa waaye waa birta maarta oo hoos maraysa. kana waa birta maarta oo kor maraysa. haddii kuwan kala fiirino kaba soo qaad kan waa textaha iyo waxyaalaha magacyada leh kor lagu qorayo meeshaan looga qoraa. kanna waxa waaye bahasha cagaarka oo korka laga saarayo. kanna waxa waaye meesha banaanaanaysa oo wax lagu dul alxami karo. hadda markaan oo waxa soo dhigno kadib dib u fiirinayna. okay, inta taabanayna si aan u soo gashan waxyaalihii oo schematic noo yaalay inta taabanayna. okay, waxa ku qoran wax qalad ma jiraan wax dhanba sax bay u soo galeen inta dhiganayna. okay, ta koowaad oo loo baahan yahay laga bilaabo waxa waaye
boardkaagu horta intee buu la ekaanayaa. Marka saan u dhahnay boardka annaka waxaan rabnaa inaan Arduino-ga dusha ka saarno. Boardkeena waxaan la ekaysiinaynaa Arduino-ga wax yariis ahaan ka weyneynaynaa. Marka si aan boardkeena u dhahno intaasay la eg tahay, waxaan u baahanaa inaan tagno layerka la dhahayo edge cut. Macnaheedu waxa waaye boardkaaga intuu la egyahay mase inta aad jaranaysid oo adiga boardkaagu ka samaysan yahay. Kadib waxaan tegaynaa line-yaashaana tegaynaa. Ana wax yar zoom ku sameynaynaa. Marka saa ujeedii hal millimeter isku jiraan. Marka si aan wax yariis uga sikisano waxaan u baahanahay kala soo qaad inta inaan tagno 0.25 wax yaraan dhaafsinaya. Kanaan hadda wado waa inaan meeshaan ka bilaabay ku dhamaystiraa. Marka si aan kullina fit zoomka u dhaho waxaan taabanayaa keyboardka meesha la dhahayo home. Hadda marka haddii aan fiirino waxa dhan soo boardka noo ekaan karo intuu weyni leegyahay soo eegyahay hadda u baahanay inaan ogaano. Waxaan tegaynaa view bacdi waxaan taabanaynaa 3D view aan boardka noo ekaanaya. Kuwii kale oo ujeedin banaanka yaalin marka kulli gudaha ku soo gurayna. Wakaasa haddii ka soo qaad hadda aan dhahno siyaabo boardku ekaan haddaan kii haddaan sameynayna aan sameynin waxay dib u noqonayna kala soo qaad si aan uga saaro kan soo sameeyay save aan dhahaya bacdi waxaan dhahay 3D view siyaabo ekaanaya. Meeshaan uu noo sheegay wuxuu leeyahay boardkaagu aad u weyn yahay maad sameynina intuu weyn la ekaan karo. بس marka hadda meeshii aan xiisaan hore sameysana ku soo ceshanay wakana boardkeena marka intaan u leeyahay hashaan hoosteeda ku jira waa ka yara ka sikina kan saan loo arko view saan u ekaanaya. Okay marka waa kasa qalabyadan dhan meelaha ay oolayaan ayaan doorsanaynaa. Okay bas marka hadda waxaan u baahanaa kuwan yariiska inaan soo dhigano. Okay marka hadda waxyaalihii booskii aan la rabnay qiyaas ahaan waa dhignay. Waxa kale oo u baahanaa waxa waaye magacyadan inaan qaadno oo aan dhigno meel oo waxyaalo kale aysan dul oolin. Meelaha waxa meelo banaanaanaya waaye aad ujeedin. Marka meeshaas meel wax lagu alxam loogu talagalay waaye. Kuwan inta marka kor yaaliin waxa dhacaya waxa waaye magaciina wuu halaabayaa. Meesha wax lagu alxamayna waxba dul saarnaanaya. Marka hadda kan qaada ku qoran tahay hoostana dhigayna. Waa dhamaynay. Waxaan kala u baahnaa marka waxa fiilooyinka isku xirno. Mid kasta saa ujeedin magacyada waxyaalahan cadaanka yariiska ujeedin waxay sheegaysaa waxa waaye kan meesha u baahanaa inaan ku xirno kan meesha u baahanaa inaan ku xirno. Marka hadda markaan fiirino kulli hal waxaan jeedaa kan hadda rabna inaan ka soo qaadno inta geeno kan rabna inta ka soo qaadno inta geeno labada fiiloo waxay sameynayaan way isdhaafayaan. Marka midna waxaan sameyn karnaa leg hoose aan ku wadi karnaa midna lega kore laakiinse
midda kale oo ka fudud samayn karna waxa waaye labadan magacaan kala bedeli karnaa. Kan waxaan ka dhigi karnaa la 1, kanna waxaan ka dhigi karnaa la 2. macnaheedu waxa waaye marka toos kan intuu imaana kana toos intuu imaanaya. marka saasaan samayno. sidaan ku samayn karnaa waxa waaye schematic dibna ugu noqono oo aan fiirno meeshan. waxaan u baahanaa waxa waaye labada magac inaan kala bedelno. kan intaa soo qaadayna intaa dhigayna, kan intaa soo qaadayna intaa dhigayna. hadda waxaan dhahaynaa save PCB-ga dib ugu noqonaynaa. waxaan dhahaynaa update PCB. saa markaan dhahno waxaa dhaca labada magac way isbedeleen. la 1 la 2. kan toos oo samayn karnaa kanna toos sidoo kale. hadda marka waxaan samaynaynaa fiilooyinkii waan isku xiraynaa. tan koowaad aan samaynaa waxa waaye signalada inaan kala fiirno oo si u kala muhiimsan yihiin. kuwa ugu muhiimsan kuwa waxa waaye control signalayaasha kuwa la hayo iyo kuwa oo informationka wada. marka kuwa informationka wada waxaa ka mid ah kaba soo qaad hadda kan controlkan camal. kani marka toos intaan u geyno waaye. kan kaleeto muhiimka ah waxa waaye bluetoothka iyo meesha uu marayo. kan bluetoothka ka soo baxaya oo tagaya meeshaan chamberka ugu xirayno. kanna intaa ku dhijinaynaa. kan ayaa soo haray. kan intaa ka dhex bixin karnaa. waxaan isku dayaynaa inta inaan marino. kana soo haray. intaa ku dhijinaynaa. hadda sidaad u jeed meelahan aan samaynayo waqti badan markuu isticmaalayay maadaama electronican aan samaynayno uusan ahayn mid high speed ah. sida caadiga PCB marka la samaynayo waxaa jira wax la dhahayo signal integrity, taasoo u baahan in laga fakaro oo lineka intuu weyni leegyahay, intuu dhir leegyahay, inta kale laba line intay isku jiri karaan, laba track mise laba line mise laba fiilo intay isku jiri karaan. marka hadda annaga designkeenan saas ma uga baahnaa uga fakarno maadaama waxa ay yihiin wax low speed ah. hadda waxaan taabtay v, macnaheedu waxa waaye v ayaan samaynayaa. fiiladii maadaama kan oo bluegaan isticmaalayo saan kan gaduudka oo topka mise frontiga mara aan ugu bedeshto v aan taabanaya. marka v uu ii sameynaa isla markaasna wuxuu isku bedelayaa inaa kan gaduudka isticmaalo frontiga. sawirkeedu wuu isku dhagan. saan hadda u jeedo signalada dhan waa sameeyey. waxaan u baahanahay waxa waaye kan bas inaan sameeyo. kanna waxaan isticmaalaynaa saan oo kaleeto, laakiin fiiladan haddaan sameyno fiili waa yar tahay. in fiilada u weyneyno waxaan ka dhigaynaa 2 millimeter. intaan leegtaa marka kadib saan inta ugu dhagsanaynaa. midna sidoo kale inta u marsanaya. fiilada ballaarkeeda waxaa ka sheegaysaa inta qulqul qaadi karto. marka maadaama kan xawaas qulqulkiisa aan isleeyahay wuu ka weyn yahay kuwa kaleeto, fiilada inaan weyniyo waayo. marka saa hadda arkaysiin waa fiilooyinkii dhan waa ku dhajisanay kuwa signal ku saabsanaa. waxaa noo haray waxa waaye kuwa 5 voltiga iyo ground ku saabsan. 5 volt iyo ground kuwa ku saabsan. waxaan sameynaynaa marka waxa waaye waxaan dhahayaa sound waxaan dhahayaa sameynaynaa. soundku waxa waaye area dhan meeshan waxaa ka soo haray oo fiilooyinkaan marayn ayaa waxaan ku buuxinaynaa. dhanka kore waxaan ku buuxinaynaa 5 voltiga, dhanka hoosena mise dhanka dambe bagga qofka suu yaqaano, dhanka dambena waxaan ku buuxinaynaa groundka. markan koowaadaan ka bilowno inta tagayna kabacdi waxaan taabanaynaa sound, tagaynaa inta camal wax yaraan ka weyneynaynaa. muhiim ma ahan intuu weyni leeyahay soundkani, adigu wuxuu buuxinaya waxa waaye inta edge cut-ka uu sheegay. marka hadda waxaan doorsanay front cover 5 voltigaan doorsanaynaa. bacda okay aan dhahaynaa. line ayaan sawiraynaa. sidii kii hore camalna waxa waaye inaan meeshan ka bilownay inaan ku dhammayno. hadda waxaa laga yaabaa inaan loo jeedin soundkaas wuxuu qabtay, laakiin waxaa la samayn karaa waxa waaye intaa la tegi karaa. kadib wuxuu leeyahay waxaad taabataa waxaad tagtaa meeshan lahay edit. bacdi waxaad doorsataa uu leeyahay in la dhahayo fill sound mase xarabka ba ayaa taabsan kartaa. 5 volt wuxuu ku saabsanaa dhan 5 volt waa ku dhijinay. waxaa noo dhiman waxa waaye hal wax kala hilmaamay. meesha ujeedin kan inaan kan ku dhijino. okay so kuwan groundka ahna ayagana dibaan ka sameynaynaa. marka dhanka gadaalna sidoo kale isagana waxa waaye inaan u sameyno
zone kaleeto laakiin kan ayaan waxaan sameynaynaa copy aan dhahaynaa inta tagayna haddana waxaan dhahaynaa paste waa kana isagaan tagaynaa marka haddana right click aan taabanaynaa waxaan tagaynaa meesha la dhahayo properties kadib waxaan dhahaynaa korka inuu joogo maaha kan waxa waaye bagga inuu tago signalka uu wadana uu yahana waxa waaye groundka waxa la dhahayo waa kaas asagiina marka hadda saan u jeedno wixii groundka ah dhan way dhammaadeen laakiinse labadan inaan isku dhejina u baahan yihiin saan isugu dhejinayna waxa waaye kuwan ayaga koraan tegayna kor markaan tagno ayaa waxaan sameynaa fiilada waxaan taabanaynaa qa si aan u weynayno waxaan ka dhigaynaa 0.5 ilaan ka dhigaynaa marka waa isku xiraynaa mid okay marka waxaan taabanaa haddana ba intuu ka jaraya marka soundka kaasa uu ka sikiyey waxaa ku qoran marka 5 voltigan iyo 5 voltigan iskuma dhegana groundkan iyo groundkan iskuma dhegana labaas waxna xallina waaye marka saan ku xalinayna waxa waaye biyo ayaan soo qaadanaynaa inta ayaan dhigaynaa magacii biyarku noo yeelanaya yar waa ka sigsanaynaa ba aan taabanaynaa hadda marka waa uu ka jaraya waxa kaleeto okay inta imaanaynaa biyar kale aan soo qaadanaynaa intaan dhigaynaa walaa inta camal kasa 5 volt waaye mid kaleetana sidoo kale intaan dhigaynaa wax yar soo sikina kan so waxaan sameynaa waxay intaa u gudbinaa dhankaana tegaynaa waxaan leenahay 5 voltigan rabnaa inaan kan kale u gudbino 1 millimeter camal ka dhiganaya kan soo wadaya labadii 5 volt isku dhagan kala sameynayna waxa waaye inta tagaya bagga taga inta okay ma u baahni kan okay hoos le u baahan inaan u dhigo bas u baahni wax kale aan ku sameeyo kaasna wuu qabsana so boardkan haddaan fiirino wax yar soundka height baan dhahaynaa maadaama uu naga hor istaagay laakiin weli soundkii wuu noo samaysan yahay saa ujeedno waxyaala waa isku dhejinay fiilooyinka waaweynka waxa waaye kuwa oo powerka wada kuwa yariskana waxa kuwa signalka wada marka boardka saas ku dhamaad 3D viewgan fiirinayna soo egyahay okay so hadda waa kaasa wax fiilooyinkii meeshii aadayn waa loo jeedaa dhankaana tagnay dhankaatana waa kuwana waxyaalii kale noo yaalay aan u baahannahay marka inaan samayno waxaa la dhahayo design rule check okay so design rule check markaan wadno waxaa ku qoran 6 qalad ayaa jirta meeshan so qaladka haddaan ka bilowno kana waxaa ku qoran error courtyard overlap macnaheedu waxa waaye hadda kan haddaan doorsano ra shanta kan dhahayo shanta waxaa ku qoran haddaad fiirino kan pinkigan waxa waaye courtyardka frontiga waaye midda kaloo jirtana waxa waaye arduinoganina asna waxa waaye korka ayuu yaalaa oo courtyardkiisa ayuu kan ku dhex jiraa marka sida caadiga qalade taas ahaan lahayd laakiin anagu maadaama aan la dhahayn kan meeshan yaallaa arduino ma aha meesha arduino ku fadhin lahaa maadaama uu yahay qalad ma ahan laakiin sida caadiga arduino inta ooli lahaa oo aan dhan waxba dusha kaga dhijinaynaa qalad buu ahaan lahaa marka sidaas darteed 6dan qalad kulli oo courtyardka ku wada saabsani wax qalada ma ahan marka hal xabo warning bas meeshaan ujeedaa kan warningta fiirinaya warningka waxaa ku qoran meeshan silk screen overlap okay kan camal hadda waa qalad meesha ku qoran waxa waaye okay so labadan silk screen dusha ayay iska saaran yihiin midna waxaa ku qoran yahay labadooduna gadaal jiraan wareeg iyo line ayaa dusha iska saaran waa kan wareegan iyo lineka kana haddaan fiirino horta runtii qalad ma ahan maadaama kan markaan soo gashanina meesha ee sidaa usoo sameyn dadka sameeyey qalad ma aha 3D viewga marka la ku noqonayna saan u aragna say wax u egyihiin
okay kulli saana way yihiin marka waxaan ku soo darsanaynaa hadda inta waxaan soo gashanaynaa Arduino-gii saan u ogaano siduu u egyahay si aan u soo gashin Arduino siduu egyahay waxaan tegaynaa meeshan boardkan Arduino-ga loogu talagalay inuu ku fariisto waxaan taabanaynaa kadib waxaan tegaynaa 3D halkan intaa tegaynaa waxaan leenahay 3D-ga wuxuu yaalaa meesha uu yaalla pathka u sheegaynaa Arduino Nano folderka smart nalka la dhahayo gudihiisa waxaan sameeyey folder kaleeto la dhahayo 3D models halkaasoo aan geliyey kan Arduino Nano 3D modelkiisa siduu u egyahay oo internet ka soo qaatay ayaan soo geliyey marka step file waaye step filekan doorsanayaa marka wax yar waqti bay qaadanaysaa intuu ka soo gelayo ana uu soo galay waxaan u jeednaa laakiin meeshaan aan rabno inuu ku fariisto laakiin waxaa jira waxa waaye dhan kaleeto ayuu u gedisan yahay marka waxaan u baahanaa waxa waaye inaan gedino oo la sino godadkan saan u gedino waxa haddaan inta taabano horta maxaa dhacaya dhan kale u gedoomo saan u gedinaynaa kadibna waxaan u baahannahay dhankan inta inuu jiro taasna waxaan ku sameynaynaa waxa waaye sidaan hadda waa dhankii aan rabnay inuu u jeesto wuu u jeedaa tan ayaan sikinaynaa kadib waxaan arkaynaa gudaha ayuu soo galayaa muhiim maaha perfect hadda inaan ugu dhejino meesha laakiin wax yar le aan u baahna inaan sikino haba hadda waxaan u baahna marka hore inaan soo durkiyo saa hore u durkiyo kan waaye dhanka kale aan wadaya kadibna waxaan u baahna kor inaan u qaado soo dhex baxaya so marka hadda meesha saxda ayuu jooga laakiinse godkan ugu horeeya inaan kan soo geyno waay sidaan ku sameynaa waxa waaye horta kan saan soo dheh kana halmarsaan dheh kasa hadda meeshii aan ugu talagalna wuu noo fadhiyaa laakiinse Arduino-ga iyo boardka waxaan u dhaxaysiin doonaa pin hera oo female ah oo kan lugihiisa ay soo gelayaan marka xoogaa koraan usii qaadayna san camal waadi ahaanaya okay baan dhahaynaa marka hadda wixii oo dhan oo dul saaran oo isku rakiban si uu u ekaan doono san way marka hadda xoogaa yar waqti buu qaadanaa maadaama 3D-gaas oo cusub oo Arduino-ga aan soo gelinayno wakana staan u ahaanaya Arduino intuu noo yaalla intaa ka programmeynayna labadii xabo oo terminal blockska inta yaalin intana waxaa yaalla solid state relay-ga kana temperature sensorkii waaye kana waxa waaye kan chamberkan ku dhejinayno markii aan dhammayno inaan programmeyno Arduino-ga markii aan rabno inaan programmeyno waa ka siibayna Bluetooth module-kii aan ku dhejinayna marka saan u ekaan doona hadda waxaan idin tusinaa marka sawir oo aan ka qaaday boardkii aan soo sameeyey oo saan u eg markii wixii dhan la isku dhajiyo si uu ekaan doono iyo Arduino-gii si isku yihiin hadda inta waxaad uga jeedaa waxa waaye qalabyadii aan isku dhajiyey kii boardka aan soo sameynay qalabyadiisii korka looga dhajiyey iyo Arduino-gii sawirkan kaleetana waxaad ka arki kartaa ayagii la isku dhajiyey markaas suu noqonayo videoga afraad ayaan uga hadli doonaa saa isugu dhajinay iyo waxyaalaha u baahanay inaan ka fikirno marka la isku dhajinayo marka hadda videogan waa idin tusinaya kaliya le markii PCB-ga la sameeyo waxa ugu dambeeyo laga filayo suu ekaanayo marka halkaasaan ku joojinaynaa videogeeni maantay oo ku saabsana PCB-ga wiiga ku xiga insha Allah waxaan samayn doonaa videogii oo Arduino ku programmeynayay